waddankeena Soomaaliya berigii hore si la isu dhaxgalaan gobolada waqooyi iyo koonfureed waxa la sameyn jiray meelo kala duwan ayaa waxa ka dhacaysay in loo kala bedelo ama shaqada ha ahaato ama ciidamada ha ahaato waxaan xusuustaa marka anigoo dugsiga dhexbaydhaba ka dhiganahay macallimiinta shaqada qaran ama gurmadka la dhihi jiray ardayda dugsiga sare kaga soo baxday waqooyiga yaa koonfurta la keeni jiray si ay macallimiin uga noqdaan dugsiyadaas dadkii marka dugsiyadaas dhiganayay ayaan ka mid ahay waan u mahad celinayaa marka macallimiintii waqooyi nooga timid ee macallimiinteena ahaa ee waxna baray sidaas la mid ah ayaa macallimiinta ardayda ah ee ka baxday dugsiyada sare koonfurta waxa loo diri jiray waqooyiga saasay marka ayagana macallimiin uga noqonayeen xagga ciidamadan u soo galaa marka sheeka ciidamada xilli waxa jiray ama rabitaankooda dadku ay ku gali jireen iyo xilliyo dambe oo intii ciidamadii laga caajisay markii dambe si xoog ah loo ciidamayn jiray dadka oo magaalooyinka intii la yimaado dadka intii la qabto askar laga dhigi jiray waxa ayadana jiri jirtay marka askaraha oo kuwa laga soo qabto midna waqooyiga koonfurta la keeni jiray kuwa koonfurta laga qabtana waqooyiga la geyn jiray si ayna u fakanin ama ina u goosanin halkan waa marka halka qisada ay ku jirtay rabaa inaan idin sheego qosol kale kuwa koonfurta laga qabtay gaar ahaan baydhabo kuwa laga qabtay yaa waqooyiga loo diray si loo sii waday yaa hargeysa la dhaafiyay gabilay marka la sii maraayo xaradii ciidamada loo wadaa marka oo dila markii la dhaafo marka gabilay markii la sii marsiinay gabilay waa meel dhul beereed ah masagada ka baxda masagaduna waxay kale ka baxdaa baydhabo markaas wuxuu arkay sabuulkii oo saa u qaloocan waqti yar oo nasasho la qaadanayo ciidanka waxoogaa heranasteen meesha loogu dajiyay sabuulkii markuu arkay yaa wuxuu la yaabay sabuulkan wuxuu maleynayay malaha baydhabo le inuu ka baxo inuu gabilay ka baxaayo ay ku cusbay markaas sabuulkii la hadlay wuxuu yiri misigoy anaka goroday aday gorodaas horta xuud aan waan ku aqaanay baydhabo ku arki jiray laakiin meeshan waa la soo xiyay oo marka waan ku garanayaa waan ku aqaanay adu ma taqaanaa midre gabilay wuxuu yiri wala yaabay ninkan oo misigada la hadlay markaas uu gaw waarday inaan ku mahruur ku la hadlayaa markaas wuxuu yiri iyay allah ani gaalay waayt hadana magaca ku bedelayna haruura kimbiyena wuxuu magaca intii ka bedeleen ma haruur ku bixiyeen hadana masagale ku naqaanay